xadiid imaamu axmed uu wariyo dadku inta badan laga yaabo inay maqleen a'immada qaarna ay tasxiixiyaan calaa kulli xaal xadiidka macnihiisu wuxuu sheegayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii oo fadhiya ayuu wuxuu nebigu yidhi waxaa idiin soo gelaya nin ahlu jannah ka mid a nin nooloo soconaya buu nebigu leeyahy ahlu jannah ka mid a dabeetana nin baa yimi ansaariya oo garhkiisa weysadii ka da'ayso oo labada kaboodna bidixda ku sita maalin dambe ayuu haddana nebigu yidhi nin ahlu jannah ka mid a soo gelaya isla ninkii uunbaa soo galay mar saddexaad ayuu haddana nebigu yidhi nin ahlu jannah ka mid a idiin imanaya haddana ninkii uunbaa soo galay saxaabi cabdillaahi bnu camar ibnu caas la yidhaahdaa wuxuu is yidhi waar bal ninka kani wuxuu rag ku dhaafay ee loo leeyuun markuu soo galayaba nin ahlu jannah ka mid a soo gelaya bal raadcee dabeetana waxoogaa marmarsiiyuu u samaystay inuu martigeliyo ninkii wuu martigeliyey 3 habeen buu la seexay ninka gurigiisii habeenkii markuu la seexanayo bal ninkan wuxuu ilaaliyaa wuxuu qabto cishuhu tukadaa wixii witir alla u qoray salaad buu iska tukadaa waa iska seexdaa habeenkii saqda dhexe markuu baraarugo isrogaba waa tawxiidsadaa waa istakfurlaystaa yani waa dikriya nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa qofka wayse qab ku seexda habeenkii markuu soo kaco subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah idhaha allahuma akfir lii ilaahay dembigiisa waa dhaafaa markuu habeenkii toose isrogrogayo adkaartaa yara kooban akhrista ilaahay dembiga waa ka dhaafaa ninkan intaana waa sameeyaa 3 maalmood markay dhammaatay ayuu wuxuu ku yidhi cabdillaahi ibnu camar warniya waxaan rabaa bal inaad ii waranto salaada subax markay soo dhowdana wuu kacaa unoo dee fajriga dadka siday u tukanayeen buulama wuxuu hi niyow wax dhibi ma jirin waxaanan kuugu imi inaan ogaado waxaad qabato camal weyn oo gaaroo lagugu tilmaamana maan arag ee maxaa halkan ku gaadhsiiyey nebi maxamed sheegaya ii sheeg nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leenahay ahlu janna ah dadkiina ma arkaba inaad ka acmaal badan tahay waxa aad qabataay wax ii sheeg buu ku yidhi wuxuu ku yidhi intaa aad aragta mooyaane wax kale ma sameeyo isagoo la yaaban markuu isiri dhaqaaq buu yeedho wuxuu yidhi laakiin midaan kuu sheego qof muslima gish iyo khiyaamo kuma sameeyo wax xaasidnimo iyo waxaan laabta ugu hayaana muslimiinta ma jiraan cabdillaahi wuxuu yidhi haadihi alatii balagat bik wa hiya alatii laa nutiiq waar waa tantaad meesha ku gaadhay buu yidhi annana aanu kari weyn in laabtaadu nadiif tahay oo aanad cidna laabxumo ugu haynin waa mas'aladan buu leeyahy mas'alada idan ayuha alaxiba waxaan leenahay ahlu janna wanazacna ma fii suduurihim min gillin ikhwaanan calaa sururin mutaqaabiliin wanazacna ma fii suduurihim min gill tajri min taxtihim alanhaar ilaahay baa ku ammaanaya taabiciintii waladiina jaaءuu min bacdihim yaquuluuna rabbana اغfir lana walikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan haddaba inaad laabfayoobaataa adiga caafimaad qabbay kuu tahy waxaad seexanaysaa adoo miyir qabo caafimaad qabo wax dhibi ku hay adoo ciil qaba haddaad tidhaahda seexana gamiba maysid 9 jeer baad hurdada ka toosaysa iyadoo kolba maskaxdaadu ay soo celinayso warkutaalooyinka iyo wixii dhibku haysatay waxaad ka badbaadaysaa colaadaha iyo dhibtoo dhan walidaalik qur-aanka u fiirso ambiyada ilaahay markuu sifaynayo waxyaabaha lagu sifeeyey ugu waaweyn waxaa ka mida inay dad laabtoodu nadiif ahayd yani waa min sifaat alambiyaa haddaynu nebi ibraahim ku tilmaamnay id jaءa rabbahu biqalbin saliim nebi moxamedna anas ibnu malik xadiidku warinaya waa kale man taqama linafsihi weligii ma aargoosan macnaheedu waa maxay madax ciil qabta hadday dad hogaamiso waa la jabaa nin isla aargoosa ama reer ribal xabaal ama kuwa garbi ama siyaasiyiinta intan kale xabaal ama nin ciil qaba hadduu madax noqdo waa laguma guuraan nin laakiin laabtiisu caafimaad qabto dadka inuu kor wado socda hadduu yimaado wax buu hogaamin karaa walidaalik ambiyadu waa qaadat اlumma waa dadkii bulshooyinka adduun soo hogaamiyey waa hogaanadii ilaahayba doortay de hogaannimo loo doortay walidaalik baa ilaahay nebi maxamed wuxuu ku tilmaamayaa man taqama linafsihi abad weligii ma aargudan nin intuu hogaaminaya ka aargudanaya muxuu soo kordhin weligii ma aargudan baa la yidhi nebi maxamed caasha waxay ku tidhi ridwaan ullaahi calayha wa can abiiha
maalin uxud kaaga dhib badan miyaad aragtay ilaahay rasuulkiisiiyo dabeetana wuxuu yidhi waxaan tolkaa kala kulmay malayn maysi markii layga saaray maka ee aan tegay daa'if ee haddana wax magaratada laygu diray dhagaxa laygaga soo saaray waan socday buu nebigu yidhi ilaa iyo qarnu thacaalib meel la yidhaahda markaan marayay baan baraarugay lama fiq buu nebigu tilmaamaya yacni qofku markay dhibto ka badato waa iska socday unbuu nebigu leeyahy wuxuun baan kala gartay anigoo maraya maxay meel la yidhaahdo qarnu thacaalib markaan marayay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo geystay ayaa jibriil u dhawaaqay dabeetana wuxuu jibriil ku leeyahy in allaha qad samica qowla qowmika wamaa radduu calayk ilaahay waa maqlay tolkaa waxay kugula hadleen iyo waxay kuugu jawaabeen rabbina wuxuu kuu soo diray malagii buuraha maanta inaad amarto ee waxaad doontaa amar malakuljibaal wuxuu yihi reer maka labada buurooda hareeree ka xiga aan kor u qaadaya dushaan ka saaraya haddaad adigu amarto nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam makiina waa tii nebi maxamed tuntay ee magaalada uuga baxay gaala hadday ku disho malag lagu soo diray maxaad yeeli lahay ilaw midha ka reebin soo ma hadday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyagoo gaala ah oo magaalada ka saaray oo dhibtaas qabsatay oo kuwii kale soo eriyeen ayuu wuxuu leeyahy bal arju an yukhrij allahu min aslaabihi man yacbud allaha waxdahu walaa yushriku bihi shay maya ilaahay baan ka rajo qabaa inuu dhabaradooda iga soo saaro kuwa ilaahay keligii caabudo towxiidsada waan cidna ugu shirikiye amal kaasuu qabaa mustaqbal madoobi uma muuqdo inkastoo la diiday qalbigiisuna ma buko waa argooso iyo nimankii waxaa kugu sameeyey adna aakhira ku hubi ma aha ee aadanaha inuu naar ka badbaadiyo guntigaan idan hayaa buu nebigu leeyahy o naartaan idinka xejinaya idan xagga naarta u sii yaacaysaa saa daraaddeed buu maalintii uxud markii dhibtu soo gaadhay uu godka ku dhacay ee koofiyaddii gashay ee ilga hoose laga jebiyey salaadihii fadhi uu ku tukaday ee dhibtu qabsatay ayuu nebigu wuxuu ihi allah maxay yeeli duul wejigoodii dhiiggaa saa uga daadiyey maxaa xaalkood noqon cadha alla way badantay ilaahay baa qur-aan soo dejiyey la yidhi laysa laka min alamri shay dabeetana wuxuu leeyahy allahuma akfir liqowmi fa innahum laa yaclamuun waxba garan maayaane yacni gaaladii ilaahay leey waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuka wayamkuruuna wayamkuru allah wallahu khayru lmaakiriin kuwa ilaahay yidhi way kaa soo saareen iyagoo rabay inay ama ku xidhaan ama ku dilaan ama ku bixiyaan go-aanka ku qaatay inay dilaan ee ilaahay subxaana wa tacaala ka soo badbaadiyey ayuu isagoo 8,000 oo ciidana u yimi wata maxaa filaysaan buu ku yidhi waxay idhaahdeen akhun kariim wabna akhun kariim muu aargoosan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi laa tathriba calaykum alyowm canaani korkiinna ma aha iska taga idan dadkii dadka hogaaminayey saasay u fakerayeen qisada nebi yuusufna in badan baa laydinka warrama nebi yuusuf walaaladii oo god ku riday oo xidhay oo dhib u geystay oo haddana masabiday oo yidhi kan yari hadduu xaday walaalkiiyo ka weyn baa tuug ahaan jiray waa yuusufka hor taagan ayay leeyihiin walaalkiiyo ka weyn ayaa tuug ahaan jiray ayuu haddana iska cafiyey tallaahi laqad aataraka allahu calayna wain kunaa lakhaaiin markuu ku yidhi laa tathriba calaykum alyowma yakfiru allahu lakum wahuwa arxamu araaximiin yacni laabta muu bukin iyagoo god lagu riday oo aabbihii laga kaxeeyey oo addoonsi galay oo xabsi soo galay oo soo rafaaday noloshiisa qayb ka midoo sanawaata xabsigoo quru 7 siniin 7 sano wax ka badan ku jiray intaasoo sannadood baa la addoonsanayay god cidlaabu waxaasoo rafaada walaaladiisii soo mariyey ayaa u yimi iyagoo baahan isagoo madaxa markaasay haddana isagoo madaxa oo aanay garanaynin weli caayayaan oo leeyihin kan yare hadduu xaday mid hore ay walaalahaayeenoo tuugaa jiray markaasuu ka xishooday inuu yidhah war idinkaa tuuga idinkaa xumaa oo god igu riday waa cafinaya haddana wuxuu leeyahay dambi korkiinna maaha bal waxay culammadu yidhaahdaan wuxuu ilaaliyey khawaatirtooda
ومركو دعي سنيي حتى ما ورنين إلهي أنا جيلك soo saaray idinkana abaarta idinka keenay ilaa abaar baa ku dhacday labadaba waa asturo kana waa iska dhaaf ilaahay godkayga soo saaray ma odhanin wuxuu yidhi ilaahay jeelkayga godkayga ma xun god cidlaa baa xun jeelka dad ba ku noole god cidlo laba dagaadii lagugu rido dee jeel ka daran laakiin isagoo rabbi rabo wuxuu nimco siiyey inuu ka warramo ayuu wuxuu ilaaliyey khaatirka walaaladii godkaayo haddii la sheego dee walaaladii xaalkoodii baa soo baxaya dabeetana uu iska daayo gaaladu intay u geysatuu sheegay ilaahay anigana jeelkayga soo saaray idinkana mu odhanin abaarta idinka keenay wuu asturay idinkana baadiyaa idinka keenay buu leeyay yani wuxuu diidan yahay wax hangaruufo ah isaga iyo walaaladii maxay inay dhex maraan min bacdi an nazaqa shaytaanu baynii wa bayna ikhwatii mu odhanin markaa dhibta ii geysateen markii aniga iyo walaalkay shaydaanna dhex maray buu leeyahay aniga iyo walaaladay shaydaanna dhex maray idan waa nebiyadii malaa waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdaan dee anagu ma nebiyaanu gaadhayna qaaraan nebi ahayn aan ka warramo oo qur-aanka ka warramay ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu kaga warramayaa qiso hore fi suurati yaasiin suuratu yaasiin ilaahay wuxuu ka warramay 3 rasuul oo magaalo loo diray rasuul baa la diray markaasay beeniyeen mid labaad baa laga daba diray markaasay beeniyeen mid saddexaad baa laga daba diray 3 rasuul baa la beeniyey 3 rasuul markii la beeniyey ayaa ilaahay qur-aanka wuxuu kaga warramayaa nin kale oo aan isaga rususha ahayn وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون إلهي وحولي مقالة حقا وقدام بيسا وحكي منين وقهرين نين قوبت جوغيبا ما أهين وركا قاري النبي الذي دي دابا تنوس حلقا حلمو إسا صار هل كاسو يمي با إلهي وحكا له إلهي الراعي قابكو يمي ما هين نين عاجسة isagoo rooraya oo inuu arrintaa wax ka qabto raba ayuu yimi baa ilaahay yidhi wajaa min aqsa almadiinati rajulun yasca wuxuu ihi wartolkayow waa raaca rasuullada cidaan waxba idinka doonaynin idinna hanuuninaysa aadanuhu inta badan soomaalidu maxay odhan jirtay wadaadka wacdigiisa waxaa ka dambeeya maxay waxay markaa wacdigan hore dadka mari maayaan mar haddaad waxay la daba taagantay waa kollay dantu wataa uma waxay dhiiba weeyaan kan ilaahay wuxuu ku sifeeyey inaanu taa wadanin wuxuu leeyahay waa raaca rasuullo idinna hanuuninaya waxna aan idinka doonaynin aadana haddii xagga jeebka laga maro wasgeejiyaa qofkaad rabto qalbigiisa inaad furato inta badan ha isku dayin jeebkiisa inaad furato dabeetana waxaa rabbi ku yidhi waa diideen isxilqaamku intuu leegayna u fiirso 3 rasuuloo la diiday ka warna innagu waxaanu idhahaa wadaadadii baa jooga oo idinka maxilka idin saareen markaa muxuu yihi ninkani meel 3 rasuul joogto ayuu iska xilqaamayaa wuxuu iska xilqaamayaa inuu qaban karo dadka inaad tidhaahdo war wacdiga dhegaysta war kaalayo diinta dhegaysta uma baahna wadaad war khamriga iska daa war zinada iska daa war salaada tukada war rabbigii ka baqa war wanaaggaa laga shaqeeyo uma baahna wadaad nin walba muslim wuu garanaya laakiin isxilqaankaa yaraaday dabeetana hal wadaad ama muxaadaro jeediya ama imaam kelmad yidhaahdaa diintii baa laga dhigay asalkuna wuxuu ahaa dadka muslimiinta oo dham inay diinta iska xil saaraan waxaa gaala idinka idin sugayaa aakhiro su-aashooduna khatar weeyaan inay yidhahaan ilaah way nala joogeen oo jeebakaygay baadhan jireen waxba noomay sheegin way noo soo hunguri doonteene diinba noomay sheegin waa su-aal khatara ninkan ilaahay wuxuu yidhi meel fog buu ka yimi isagoo roorayuu yimi caynkaasaanuu yimi haddaba intaasoo dhamm iyadoo cajaba wax kasii cajab badan baa ilaahay sheegay waxay culammadu yidhaahdaan ninkani mabdi'iisi buu casdaysta wamaa lii laa acbud maxaa aniga aan u caabudi waayo rabbiga iyo cidka mabdi'iisii oo dhan buu caddaystay kadibna isagii bay dileen waa la dilay meeshu meel sahlan maahayn meesha ninkan iska taagay waa meeshaa keensatay in la dilo waa la dilay ilaahay intuu ifka joogay warkiisii wuu inoo sheegay aakhire markuu tegayna ilaahay baa warkiisa inoo keenay haddana warka aakhire ka cajab badan ilaahay wuxuu leeyahay qiila dkhuli ljanna war jannada gal baa la yidhi markuu diinta usoo dhintay
dabeetana wuxuu leeyahy qaala yaa layta qawmi yaclamuuna bima gafara lii rabbii wajacalanii min almukrimiin. yaa layt, alla jeclaan lahaayee buu leeyahy tolkay inay ogaadaan oo og yihiin sida rabbi iigu dambi dhaafay iyo sida lay karaamay. kuwii dilay buu weli khayr la rajaynayaa, laabtaan bukin. kuwii dilay ayuu khayr la rajaynayaa. adigu hadday gaala ku disho oo dad diinta diidan ay ku dilaan oo hadda aakhare qabato oo ilaahay wax ku weydiiye maxaad odhan lahay? waxaa laga yaabaa inaad odhan lahay bal jannadu horta hay dambaysa raggii aanu sheegnay rabbow godka naareed ku hobi. laakiin ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa ninkan aakhiro jooga markii horena meel fog buu ka soo cararay inuu dadka diin u sheego, iminkana isagoo dhintay ayuu wuxuu leeyahay alla tolkayaa u sheega sida rabbi ii nimceeyey ayda igu dambi dhaafay iyana ha islaamaan weeyaane. taa macnaheedu waxa weeyaan waanu ceel qabin. si kale haddaynu tilmaamno waxa weeyaan laabtiisaa caafimaad qabtay. taasaa waxay sababtay inaanu dareemin waxan oo dhan. waxaa qur'aan iyo axaadiis badan ku soo arooray abubakar qisadiisii uu ninkii mastax ibnu athaat yidhi waxbaan ka jarayaa ee ilaahay subxaana wa tacaala yidhi iska cafi walaa ya'tali ulu lfadli minkum wasaca an yu'tuu ulu lqurba walmasaakiina walmuhaajiriina fii sabiili illah waliyacfuu waliyasfaxuu alaa tuxibuun. 44 aayadood wax ku dhadhow baa qur-aanka ku soo arooray oo masalati alcafwi waasafxi ka warramaya in dadka la cafiya ama la dhaafo ama aan wuxuu loo qabanin ka warramayaa soo arooray. aadanuhu inta badan wuxuu jecel yahay muuqaal qurux badan in lagu arko. qofna ma jecla subaxii markuu soo tooso isagoon toilet kaba gelin inuu suuqa u soo baxo, qofna ma jecla. waayo wuxuu diidan yahay isagoo fool xun inay dadku arkaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala wejiyadiinna ma eegayo, meel kaluu rabbi leeyahay anigu halkaasaan eegaa. quluubtiinna iyo acmaashiinaan eegaa. ka warran adoo qalbi fool xun la soo kacay ama la soo toosay oo rabbigaa hortiisa isla taagay. aakhirana qalbigaa nabadqabkiisa iyo caafimaad qabkiisao keliyaa lagu badbaadaa. sidaa awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim. maalinta aan adduun wax tarin qof ula yimaada mooyaane rabbigii qalbi caafimaad qaba. ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu saxaabadii sifeynaya waxaa lagu tilmaamay muxamadun rasuulu ullah waaladiina macah ashiddaa'un cala alkufaar ruxamaa'un baynahum taraahum rukacan sujadan yabtaguuna fadla min allahi wa ridwaana. nebi maxamed waa ilaahay rasuulkiisii baa la yidhi, isaga ammaan waxa ugu filan masaladaasoo keliya inuu ku rabbi doortay yahay. saxaabadase 3 sifaa ilaahay siiyey subxaana wa tacaala. sifa waxa weeyaan xidhiidhka ilaahay la lahaayeen oo ilaahay wuxuu ku tilmaamaya taraahum rukacan sujadan yabtaguuna fadla min allahi wa ridwaana. waxaad arkaysaa iyagoo rukuucsan oo sujuudsan oo ilaahay subxaana wa tacaala raalli ahaanshiisa iyo dheeraadkiisa raadcaynaya. kaasi waa xidhiidhka iyaga iyo rabbigood ka dhexeeya. makhluuqaadkan dunida kor saaran siiba aadanaha ilaahay 2 qaybood buu u qaybiyey. qayb waxaa la tilmaamay waa qayb gardarro badane waa rag iska dhiciya baa la yidhi, adag oo iska dhiciya wax waa qolada gaaleed. qaybta kalena ilaahay wuxuu tilmaamay mu'miniinta ah inay ruuxamaa u yihiin, dad u naxariista. dad col isuma naxariistaan, dad aan laab fayoobi isuma naxariistaan, dad aan wanaagga isla jecelaynay isuma naxariistaan. sida awgeed ayuhal axibba ilaahay markuu saxaabadii u manno sheeganayo, manno sheegadku waa gallad sheegasho. waxyaabaha nimcooyinkii rabbi siiyey markuu tilmaamayey ilaahay wuxuu ku tilmaamay nimcooyinka waaweyn ee la siiyey inay ka mid tahay wadkuruu nicmata allahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmati ikhwaana. waxaa xasuusataan nicmada weyn ee allaydin siiyey markaa colka ahaydeen ee qalbiyadiinna ilaahay subxaana wa tacaala uu isu soo dumay. nebi moxamed baa ilaahay subxaana wa tacaala isna ugu gallad sheegtay ama ugu manno sheegtay oo rabbi wuxuu ku leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam
koox qalbi caafimaad qabata wadataan ku siiyey baa ilaahay leeyahy. ninka qaa'idka ee hormoodkee dad hogaaminaya dad nabad qabuu hogaamin karaa, laakiin dad qofba qof reebayo lama hogaamin karo. mahmaa uu hoggaanku fiican yahay ka inoogu taqisan haddaynu xagga sare saarno madax ka dhiganno, suurtagal ma aha oo ma fududa inuu ina hogaamin karo inagaan qofba qof rabin, gobolba gobol rabin, reerba reer rabin, dadba dad doonaynin. suurtagal maaha inuu ina hogaamin karo walow uu daacad yahay. sidaa awgeed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nebiga ugu gallad sheegtay: huwa aladii ayadaka binasrihi wa bilmu'miniin waallafa bayna quluubihim low anfaqta ma fi lardi jamiican ma allafta bayna quluubihim walaakina allaha allafa baynahum. ilaahay waa ka kugu gargaaray baa la leeyahay nebi maxamedow nasrigiisa iyo wa bilmu'miniin, koox mu'miniina, kooxdaasi oo ilaahay qalbigooda walaaleeyo isu dumay baa la leeyahay. walaalnimada la sheegaya islaamnimadu ma timaado iyadoo quluubtu bugto oo caafimaad aanay qabin. dad badan oo maanta muslimiina waxay ku dhawaaqayaan war hala midoobo, oo soomaalidu ugu horrayso. soomaalidu way soo kartay, dhib tiro badan baa soo gaadhay. in rubuc qarni ka badan ayay dhulka taallay. hadda dad badan baa waxay leeyihin aan dib u midowno. haddaynu bukno miyaynu midoobi karnaa? su-aashu waa taa. qofkii laabtiisu caafimaad qabtaa ka fardan qof qura xataa hadduu yahay wuxuu seexdaa isagoo caafimaad qaba, isagoo aan noloshiisu warwariyo tiiraanya lahayn, isagoo aan laabtu huraynin. dadka badh baa waxay seexdaan iyagoo cadho la gamila. maalinba warka yare uu soo maqlo ama fadhidu ku-dirarka inta laga lahaa hurdadaba ka qaadaa, isagoo ciil qabu sariirtiisa tagaa. haddaba waxaan leenahay qofku hadduu calooshu bukooto ma noqdo qof bulshada la noolaan kara. ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu nebi ibraahim inooga warramay baryadiisii, fiirso, nebi dhan oo rabbi soo diroo ilaahay baryaya muxuu leeyahy: walaa tukhzinii yowma yubcahuun yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim. ilaahayow hay hoojinin buu leeyay maanta dadka la soo saarayo, maalinta aan xoole iyo caruuritoona wax tarin, maalinta qofka quree badbaadaya uu yahay qof caafimaad qaba laabtiisu. culammadu waxay idhaahdaan meesha tan markay joogaan waxay idhaahdaan salaamatu alqalb waa laba shay. midna waa salaamatu alqalb laga qaado inaad shirki iyo xumo kale ku jirin, laabtaadu inay ka caafimaad qabto gaalnimo iyo qurunkeedo ilaahay tawxiidkaad u khaalis yeesho. midna waxay idhaahdaan waa salaamatu sadri ah, in makhluuqaadka siiba dadka mu'miniintii inay kaa nabad galaan oo aanad maxay wax laabxumo iyo dhib aanad hayn. walidaalika nebi ibraahim ilaahay qur-aanka markuu ammaanayey waxaa la yidhi: waina min shiicatihi laibraahiim id jaa'a rabbahu biqalbin saliim. nebi nuux kooxdiisa waxaa ka mida baa ilaahay yidhi, dadka jidkiisii haya nebi ibraahim baa ka mida. id jaa'a rabbahu biqalbin saliim baa ilaahay yidhi, markuu rabbigii ula yimi qalbi saliima. idan ayuha alaxiba, in qalbigaagu caafimaad qaba aday kuu tahay caafimaad qab. walidaalik aakhiro dadka jannada ku jira nicmaysanaya xanuunka ilaahay wuxuu qur-aanka inoogu sheegay inay ka caafimaad qabaan. macnaheedu waxa weeyaan nicmadii jannada inaanu dhadhaminaynin qofka laabtiisu ay nooca kan tahay. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy haddaabay dhacday in dhibi jirto janno ilaahay u qoray kuwa laga siibaa buu noqonaya. wanasacnaa maa fii suduurihim min ghill ikhwaanan calaa sururin mutaqaabiliin. waxaanu ka siibnaa baa ilaahay yidhi wixii laabtooda uu xumo ku jiray. macnaheedu waxa weeyaan saaxibu nicma maaha qofka laabtiisu bugtaa, xataa fi dunya markaa kuma aha. haddaad rabto ahlu jannuhu siday u nool yihiin oo kale inaad u noolaato adoo adduunka jooga, noqon maxay mid laabtiisu caafimaad qabto. ahlu janna ilaahay wuxuu ku tilmaamay wahuduu ila ayibi min alqowl. war xunba ma maqlaan, halkan war xuno badan baad maqli, laakiin waxaad u baahan tahay inaad laabtaada ka shaqayso
markaan dib ugu noqonno saxaabadii ansaar iyo muhaajiriin ilaahay qur-aanka uu ku ammaanay muhaajiriinna waa la ammaanay ansaarna waa la ammaanay ammaantooda u noqon maayo ilaahay wuxuu kaloo ammaanay kuwii iyaga raacay ansaar iyo muhaajiriin kuwii raacay kuwa raacay maxaa u calaamada ilaahay subxaana wa tacaala laba shay buu ku tilmaamay mid waa inay rabbigood baryayaan oo ku xidhan yihiin waaladiina jaaءuu min bacdihim yaquuluun kuwii saxaabadaa dabadeed yimi waxay odhanayaan baa ilaahay yidhi rabbana اغfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan ilaahu noo naxariisa annaga iyo walaaladii naga horreeyey iimaanka naga horreeyey muslimiintii hore dhintay walaa tajcal fii quluubina gila liladiina aamanuu inta mu'minka ee ammaanta joogta ama iman doontana ilaahu laabtayada xuma ha u gelini haddaba ayuha alaxiba haddii mu'miniintii ka dambaysay saxaabada calaamad kan looga dhigay ilaa qiyaami saaca dadka barh baa maanta nool muslimkii hore laga rogi la'yay muslimkii hore dhintay laga rogi la'yay bale intoodii ugu mudnayd somaydan maqal qaar abubakar iyo cumar iyo caaisha iyo saxaabadii nebi maxamed iyo maxaa la yidhaahdaa saxaabadii uun ka hadlaya wax ka sheegaya jidkan ma hayaan jidka kan ma hayaan waayo saxaabada dadka raacay waxa u ah baa rabbi tilmaamayaa dadka jidka saxaabada hayaa waa kuwa maxay aan qalbigooda xumo ku jirin isla markaana ilaahay u baryaya kuwii ka horreeyey kuwii ka horreeye nacdalaya waa maxay ahlu naarka ilaahay wuxuu yidhi kulamaa dakhalat ummatun lacanat ukhtaha qola markay naarta gashaba tii kale naarta gashay ayay nacdashaabaa rabbi subxaana wa tacaala uu ku tilmaamaya taa macnaheed waa maxay dad baa maanta nool culammada muslimiinta laga rogi laayay ama dadka muslimiintu wax ka sheegaya fadhi ku dirarka tag bal soomaalida qof muslimuun baa la xamanaya or la wadaa war dhaqankii islaamku kaa maha dhaqanka islaamku waxa weeyaan rabbanaa laa tajcal fii quluubina gila liladiina aamanuu kuwa yidhaha ilaahu laabtayada xuma ha u gelinin intii iimaanka laga helay waa kuwa sidaasi ku ducaysanaya nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa safwatullaahi almukhtaara kuwa ilaahay doortay ee fiicni waa kuwe su-aal baa nebiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam xadiid ibnu maaja iyo bayhaqiba fii shucab iliimaan warinaya sheekh albaabine saxiix ku tilmaamay qiila lirasuuli illaahi sala allahu alayh waalih wasalam ayu nnaasi afdalu qaala kulu makhmuumi alqalb saduuqi allisaan qaluu saduuqi allisaani nacrifuh fama makhmuumi alqalb qaala huwa altaqiyu alnaqiy laa ihma fiihi walaa bagya walaa gila walaa xasad nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey dadka yaa u mudan dadka yaa u fadli badan yaa mudan yaa la horaysiin wuxuu nebigu ku yidhi kullu makhmuumi alqalbi saduuqu lisaan labadaas sifa ciddii leh saxaabadii waxay yidhahdeen garanay saduuqu lisaanka carabkiisu ninuu run sheego runta laasima beentu waa calaamadda munaafiqiinta iyo gaalada lagu garto inamaa yaftari alkadib aladiina laa yuuminuun intaan ilaahay rumaysnayn baa beenta sheegta baa ilaahay yidhi beenta abuurta munaafaqa markii laga warramayana waxaa la yidhi idaa xadatha kadab saddexdii calaamadood ee munaafiqu lahaana waxa weeyaan hadduu warramayo been buu sheegaa idan sidqu lisaan waa simmatu lmu'min wuxuu nebigu leeyahay runtuna khayrkuunbay kuu hogaamisaa ilaa jannada aad ka gasho beentuna fujuurkay kugu hogaamisaa ilaa aad neerta ka gasho sidaa awgeed saxaabadu waxay yidhahdeen garanay saduuqu lisaani nacrifu kan carabkiisu runta sheega garanay ee famaa makhmuumi alqalb makhmuumu lqalbigu waa maxay wuxuu nebigu ku yidhi waa attaqiyu naqiy waa mid alla ka cabsaday oo nadiif ah laa ihma fiihi walaa bagyi dembi iyo bagyi ama xadgudub iyo qooq ma laha walaa gila walaa xasad buu nebigu yidhi uur xumana ma qabo waa nin alla ka cabsada oo nadiifa buu nebigu ku tilmaamay ka alla ka cabsada nadiiftii waa maxay waa mid aan macaasida dhumban
dulmigana samaynin laabtiisuna ay nabad qabto oo qil iyo xaasidnimo ay ka nabad qabtaa buu nebigu tilmaamaya. ayuha alaxiba, bini aadamku markuu loolanka galo nowcan ma waxbuu dareemaa, laakiin waxaad u baahantahay mucaahada, qalbigaaga inaad ogaatid. maradaada haddaad suuqa marto oo cabaar soo shaqaysa maxaa ku dhacaa? oo iska gowdaa. waa normal in uska ku dhaco markaa. maxaad samaysaa? saabuun iyo biyaad ku maydhaa. waxaad ka dadaashaa maradaada tan wixii caadiyat ilxayaa ku soo biiray inaad ka nadiifiso. bini aadamku markuu loolanka galo, tartan wax ka mida markuu galo, sawaa inuu siyaasad ku tartamo, ama inuu tijaarad ku baratamo, ama inuu tacliim iyo cilmi ku baratamo, xataa mararka qaarkood dacwo iyo sheegisteed inuu ku baratamo. qur-aan la dhigayo iyo malcaamado iyo dacwo iyo wax la sheegayo, majaalaat ilxayaat oo dhan isku dar. dadku mararba qalbigoodu uu soo galaa markaa nooc min khili iyo xaasidnimo iyo wax iska dhicisku. waxay idhaahdaan salaamatu sadriga waxaa ugu dhib badan inta isku xirfadda ah bay idhaahdaan. inta isku xirfadda ah ayaa marar badan waxaa dhacda inaanay isu laabfayoobin. maalan kooxda siyaasadda ku wada jirta waxaa laga yaabaa inay waxoogaa isku dhinayaan oo isreebayaan. kooxda tijaarada ku wada jirta waxaa laga yaabaa inay waxoogaa isku dhinayaan. kooxda tacliimka waxaa laga yaabaa kooxda wadaadnimada ku jirta intii alla badbaadiye mooyaane inay isreebayaan. wadaad sareedda iyo kooxda qur-aanka dhigta waxaa laga yaabaa malcaamiba malcaamad nawcan ma inay reebayso. laakiin maxaa loo baahan yahay? waxaa loo baahan yahay qofku inuu nadiifiyo qalbigiisa, inuu soo jeedo, inuu is ogaado, inuu ogaado war maxaa kugu soo biiray, walaalkaa iyo adiga maxaa idin dhex maray. meel waxaa lagu yidhi ku dagaalan oo yaan cidi kaaga hormarin, waxa kaloo dhammina musaabaxaa lagu yidhi. meeshee lagu yidhi ku dagaalan, jannada yaan cidi kaaga horrayn. limithli haada falyacmal ilcaamiluun falyatanafas ilmutanaafisuun. sida ogeed bay culammadu waxay yidhaahdaan qurubaadka iihaarku kuma jira way culamo badani qabaan. waxaa naftaada laga horumaray qurubaadku kuma jiraan, wixii alle loogu dhowaanaya. maalan safka horaa meele ka bannaantay, adaa aw hebelow safka hore gal lama yidhaahdo. adba jannada waad u baahantahy. aw hebelkaama janno jecla, saxinkaa maaha, adaa janno u baahan. idan qurbada ilaahay u dhowaanshihiisa cid la yskama horumariyo. hebelow adigu xagga alle iga mar lama yidhaahdo. xagga alle adigu u dheeree, xagga adduunkaa la yska horumariya. adduun markuu wuxuu yahay ee adduun ku saabsan yahay baa cidda kale la yska horumariya. laakiin markuu ku saabsan yahay ilaahay u dhowaanshiyihiisa, walidalik buu nebigu wuxuu leeyay safka hore haddaa ogtiin waxaa ajar ku jira, intaad isku qabsataan waa maxay? waa laydin qori tuuri lahaa. saa uu nin waliba u rabo ninka kale inaanu u bannaynin, waa qorituur baa ka dhici lahaa buu nebigu tilmaamaya. idan markay arrintu janno iyo ilaahay u dhowaanshihiisa tay isku day inaan lagaa dheeraynin. markay baab adduunyo tahay qalbigaaga dib ugu noqon. waayo hadday laabtu bukooto balaa ka dambaysa. waxaa ka dambeeya xanuunadan ka warramayo oo dhan ee xaqdi iyo xaasidnimo iyo ciil iyo urkutaale iyo urxumo o dhan baa ka dambeeya. waxaa ka dambeeyo intaa kaaga daran in xataa acmaashii adduun ama laga aqbali waayo ama ilaahay toobad kaa aqbali waayo. maala nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy xadiidka muslim warinayo, albaabada jannada waxaa la furaa khamiista iyo isniinaha. waa maalmuu nebigu soomi jiray inta badan. waxaanu naqaanaa ramadaanna in la furo. hadiyo goor soonta iyo albaabada furistoodu in badan baa nusuustu isku xidhaa. albaabada cirka iyo kuwa jannadaba waxaa la furaa maxay? maalmaha kan fayugfaru likulli cabdin laa yushriku billaahi shay-a. ilaahay wuxuu dembigiisa dhaafaa qof kasta oo mu'mino ahlu tawxiida. laba laakiin ilaahay wuxuu dhaha iyaga arrinkooda dib u dhiga. wa ayo kaanat baynahu wa bayna akhiihi shaxnaa'un fayuqaalu andiruu haadayni xataa yasطilix. laba walaaloo isa sudhnaa oo uurxuma jirtay, iyaga waxaa la yidhaahdaa dib u dhiga. marka adduun qura waayi maysid. adduunyadu dee markay cidhiidhiga gasho waa luntaayeen oo colaad iyo beliya baas baa ka rabtay. laakiin adduun qura waxaad waayeysaa maahae waa maxay?
dembi dhaafka allaad waayeysaa. sidaa ogeed waxa fiican ilaa man ata allaha biqalbin saliim buu qur-aanku tilmaamayay, ma liibaana aakhiro nin la yimi qalbi caafimaad qaba mooyaane. xaasidnimada iyo xaqdiga iyo colaadda iyo reebninku bal fiiri, ama daymood ama dhugo ama eeg, inta waxa uu inaga reebayo, inta dhiba uu kuu geysanayo. dadka laabtoodu caafimaad qabto nebi maxamed wuxuu ku tilmaamayaa jannada sufuufta hore inay ka mid yihiin. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy kooxda ugu horraysay jannada gelaysa sida leylatulbadriga 14 dayaxoo ah ayay u galaan. kooxda ku xigtaa buu nebigu yidhi xidiga ugu iftiinka badan le sidiisoo kale iyagoo u muuqda ayay galaan. kuwan calaamadoodu waa maxay? wuxuu nebigu ku sifeeyey quluubuhum calaa qalbi rajulin waaxidin la ikhtilaafa baynahum walaa tabaaqud. kuwan qalbiyadoodu waa sidii nin qura baa ilaahay leeyahy oo wax khilaafa iyo wax isu cadhaysi iyo kuma jiraan. idan waa dad laabfayow baa la leeyahay kuwan jannada xagga hore ka gelayaa buu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. deetana wuxuu sii sifeeyey waxay nimco helayaan oo dhan. labadan aayadood mala aan idinku khatimo. ugu horrayn, bulshada muslimka ah hadday laabto caafimaad qabto colaadidee ma jirto. colaadi waxay timaadaa maxay? markay laabtu bokooto. soomaalidu maxay tidhaahdaa gacantu intaanay xumaan afbaa xumaada. afxumaa ka horraysa maxay? gacanta. hadday laabto caafimaad qabto dadku nabad buu ka shaqeeya, colaadaha iyo dhibti iyo mashaakil uma timaado. sidaa ogeed baa ilahay wuxuu ku tilmaamaya dadka mu'miniinta inay yihiin mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim. dadka mu'miniinta isu hilowgooda iyo isu naxariisadkooda iyo isjacaylkoodu wuxuu la mid yahay sidii jidh qudha oo qayba hadday xanuunsato qaybta kale soo jeed iyo xanuun ay la qabto. haddaba ba labadan aayadood ila fiirso. labadan aayadood waxay ka warramayaan qiimaha ay leedahay laabtu inay caafimaad qabto. mu'miniintuna xooggoodu inuu mas'aladan ku xidhan yahay. ilaahay wuxuu leeyahy haddaa idinku laabtiinnu caafimaad qabto waxa gaale iyo munaafiqiini mareegayso oo dhammi waxba idinma yeeli karaan. haddaydanse laabtiinnu caafimaad qabin idinkaa isdiliyo isku madhanoo kuwa kalena waydin gumaysan. markaa waa laba aayadood qur-aanka tilmaamaya. aayadda koowaad ilaahay wuxuu leeyahay in tamsaskum xasanatun tasu'hum wain tusibkum sayi'atun yafraxuu biha wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shaya in allaha bima yacmaluuna muxiit. gaalkiiyo munaafiqa ilaahay wuxuu yidhi haddii wanaag idin haleelo way ka xumaadaan, hadday dhibi idinku dhacdana way ku farxaan. waa calaamadda gaalka iyo munaafiqa lagu yaqaano. ka warran adigoo muslima haddaad saa noqoto, haddaad reer hebel marka la gumaadana faraxdid, markay guulaystaanna naxdid, muslimiintu markay guulaysato naxdid, gaalku markuu ka guulaysto faraxdid. waa sifadii gaal iyo munaafiq ilaahay ku sheegay baad adigu qaadato. si awgeed baa ilaahay wuxuu leeyahay kuwa gaaleed iyo munaafiqeed haddii wanaag idin haleelo way ka xumaadaan, hadday dhibi idin haleeshana waa ku farxaan. kaasi waa iyaga iyo qaabkay u fikerayaan. laakiin idinka maxaa dhacaya? haddaa idinku sabartaan, ilaahina ka cabsataan oo walaalnimadiin iyo alla ka cabsigiina uu jiro, laa yadurukum kayduhum shay-a. waxa ay dhib wadaan oo dhammi waxba idinma geysan karaan. u fiirsa aayadda qur-aan hadda, laa yadurukum kayduhum shay-a baa ilaahay yidhi. waxa makriya ay xadhig wareeg wadaan oo dhan waxba idinma yeeli karaan. waayo in allaha bima yacmaluuna muxiit baa ilaahay yidhi. waxaan ay wadaan ilaahay waa ogyi. ilaahay baa koobay baa la yidhi ka seexda. haddii laakiin cagsigu uu dhaxo maxaa dhacaya? ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyay waatiicu allaha warasuulah. alle iyo rasuulkii aqbal. waa jidka walaalnimo iyo caloolfayoobaad iyo waxaan idinku dhacayaan. walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu in allaha maca saabiriin.
ilaahay wuxuu ina leeyahay alla iyo rasuul baa adeeca war nisaaca iyo isqabsiga iska daaya nisaaca iyo isqabsigu wuxuu yimaadaa markay dee laabtu xumaato dabeetana waa la isqabsadaa maxaa ka ratibmaya markii hore maxaa la yidhi wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shaya markana maxaa la yidhi markay laabtii xumaatay colaadda iyo dagaaladu dhexdeenna ka dhacaan fatafshaluu watadhaba riixukum baa ilaah yidhi kelimatu lfashli fi luga dacfigaa la yidhahdaa waa liidan doontaan dowladnimadiinna iyo xooggiinnuna way tegi doontaa baa ilaahay yidhi maanta caalamulislaami maxaa ka jira marka hore calooshaa xumaatay kadibna waa la ysqabtay kadibna waa la ysdilay kadibna gaalkaa loo kala dheereeyey kadibna waa la daciifay kadibna dowladnimadii baa la waayey kadibna waa layna gumaystay markii horena waxaa layna yidhi laa yadurukum kayduhum shaya markana waxaa layna yidhi maxay fatafshaluu watadhaba riixukum haddaba ayuha alaxiba qof ahaantaada markaad tahay haddaad rabto inaad caafimaad qabto jaamacadda leeds agtiina ku taalla professor ka mida wuxuu iclaamiyey inuu dhigayo koors ku saabsan caafimaad qabta laabta iyo dadku inay iscafiyaan iyo musaamaxa oo dabeetana wuxuu leeyahay xanuunada ugu badan ee bini aadam ka dhaca cuqadka nafsigay ka dhashaan buu leeyahay haddii dadku laabtooda caafimaad qabto caafimaadkaa faafaya koorska markiiba saacaduu ku buuxsamay baa layidhi dadkuba waa bukaa yani waxaan leenahay intaan leeds iyo meel kale laynooga sheegin ilaahay baa wuxuu inoo sheegay hadday laabteennu caafimaad qabto kow inaynu inagu caafimaad qabayno hurdo fiican iyo calool fiican iyo cibaado fiican oo rabbi aqbalo iyo waxaad ku cibaadaysanayso rabbi kaa yeelo iyo dadka muslimiinta oo ku aqbala dadku qofka laabta xaadhan lama colaadiyaan laakiin tit for titkabaa ayaa beledu ka dhacdaa adna intan u geysa adna intan kuu geysado ma dhammaato laakiin dadka musaalimkaa dadkuna wuu la nabadgeliyaa waa badbaadiyaa waa la musaalamoodaa idan qof ahaantaada waad ku caafimaadaysa hadday laabtaadu caafimaad qabto waxtar bay kuu tahay diin ahaan iyo caafimaad ahaan adduunya ahaanba waa mar labaade ka bulsho ahaan jiritaankeennu wuxuu ku xidhan yahay in badanoo ka midi laabteennu inay caafimaad qabto ilaahay baa inoo ballan qaaday haddaynu sidaan nahay oo sabir iyo taqwo iyo alla ka cabsi uu inagu jiro kaydka cid kale waddo oo dham inaanu waxayna yeelaynin haddiise aynu cagsiga nahay oo markaasi inagu isu xiniyo weyn nahay oo colaadda iyo cadhadu ina dhex taallo in jabkani jirayo waxaa markaa habboon qof waloo muslimiba meesha ugu habboona uu ilaaliyaa inay qalbigiisa noqoto in allaha laa yanduru ilaa suwarikum wa ajsaamikum sidaa u egtiin iyo qoloftiinna ilaahay ma eego ee rabbi wuxuu eegaa ilaa quluubikum wa acmaalikum qalbiyadiinna iyo waxa ka ratibmee acmaasha ah ayaa rabbi eega waxaynu u baahanay meesha rabbi eego inaynu tahirno qur-aanka sifaadka ambiyada ay dacwaday wadaan waxaa horaysa wayuzakiihim bale nebi ibraahim markuu ducaynayay qur-aanku siduu u soo naqliyey taskiyaduu dambaysiiyey rabbanaa wabcath fiihim rasuula yatluu calayhim aayaatik wayucallimuhum alkitaaba walxikma wayuzakiihim weeyaan ilaahay markuu sheegay in dacwadaa uu aqbalay saddexda aayadooda kale ka warramaya taskiyaday horaysiiyeen culammadu waxay idhahdaan lafta qur'aaniya baa ku jirta oo ah inay taskiyatu lquluub ka horayso tacliimu alkitaabi walxikma تلاوة الكتاب أي تبليغ يدوية أما تعليم الكتاب والسنة أين كهر يسمحي تزكية القلوب من قلبي هذا لا نذي فيه لا الرب أيه قد أفلح من زكاها وقد صاب من دساها بإليه وحلي باني عند نفتي سطهرته إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور indhaha lama beelee waxa la beelaa baa rabbi leeyahay kuwa laabtaa la beelaa
laabta haddaad la'dahay indhahooda waxaa ka sokeeya indha maaha. laabta indhahoodu waxay arkaan marka wixii rabbi jecel yahay. wixii rabbi jecel yahay ayay arkaan. waxa rabbi jecel yahay haddaad aragtana thawaabka iyo ajarkaad helaysaa kaala weyn wax kastoo laguu geystay. in dhib lagu gaarsiiyo adna aad intii goosato waxa ka ajar weyn. walaman sabara wagafara ayaa ka ajar weyn. ayuha alaxiba, kelmaddan qaybteeda hore waxaan ku soo koobayaa inaynu maxay rabbigeen tala saaranno oo uu ahaado waxa mudnaanta aynu siinaynaa laabteennu inay caafimaad qabto. in laabtu caafimaad qabto maxaa kugu saacidaya? mal asbaab maxay markaad samayso ayay noqonaysaa laabtaadu inaad caafimaad qabtaa. in shaa allahu tacaala waxaynu ka dhigi درس آخر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.